Salaamu calaykum. Maanta waxa weeye baarti 2 qisadii saaxirkii toobad keenay ee Daa'uud. Waan rajaynayaa in aad soo daawatay baarti 1kii. Haddii aan soo daawana soo daawo. Linkigana waxaan idiin dhigayaa description-ka ama waa videoga ka hooseeya. Qisaduna waxay noogu joogtay Daa'uud oo ku noqday masaajidkii uu maalintii ugu horreysay aaday. Kadibna uu ninkii ku yidhi waxaad keentaa madax neef. Halkana ayaan ugu yeedhayaa Namruud. Wuxuu yidhi waxaan aaday suuqii, waxaanan soo iibiyey neef madaxii. Ninkii waxa uu bilaabay inuu furo buug una yeedho magacyo. Kadibna waxa uu bilaabay inuu dab ku shubo dhir. Waxa uu yidhi kac oo salaad. Waxaan galay qolkii, waxaanan arkay wax geesa leh oo ku fadhiyo kursi. Waan la hadlay, laakiin ilama hadlin. Madaxa ayuu hoos u ruxayay. Wuxuuna u guuxayay sida dibida. Wuxuuna ku sujuuday Daa'uud lugtii midig ee Namruud. Namruudna wuxuu madaxa ka saaray lugtii bidix, taas oo ay macnaheedu tahay in uu noqday saaxir weyn. Wuxuu yidhi waxa ii iman jiray dadka iimaankoodu daciifka yahay, iyagoo igu odhan jiray risiq ma haysano. Ninkayga ayaa naag kale la guursaday, naagtaydii waa isbedeshay, waxba ma dhalo iyo waxyaalo saasa. Wuxuu yidhi waxaan ku odhan jiray sixir baa ku haya, xitaa qofka isagoon waxba hayn waa sii buunbuunin jiray. Markay caafimaadaanna aniga dan ayaaba igu jirtayoo midba midka kale ayuu u sii sheegi jiray. Marka la yiraahdo xagaad ku caafimaaday, waxa uu odhan jiray waxaan u tegay Sheekh Daa'uud. Haddii qof xanuunsanaya lay keeno, waan sii weynayn jiray buu yidhi, anigoo odhanaya sixir baa kugu jira, maxay ahaytoy waad xanuunsanaysaa, si ay dadku igu soo noqnoqdaan uguna lamaaneeyo jin. Kabacdi markay caafimaad yara dareemaanna ay dadka kale igu yeedhaan, halkaana aan ka helo lacag iyo sumcad aad u weyn, dadkuna igu yeedhaan Sheekh Daa'uud. Waxa uu yidhi dadku markay saa igu yimaadaan, waxaan aadi jiray dhinaca iyo suuliga, anigoo iska soo dhigaya inaan weesaysanayo, si ay dadku igu yidhaahdaan maasha Allah, ninkan waa nin iimaan leh, waa shiikh. Kabacdina waxaan isi soo marin jiray najaasta teeda ugu xun. Waxaanan bilaabi jiray inaan istaago sijaayadda anigoo maqashinayo leh Allahu Akbar. Allahu Akbar tani ma ahan Ilaahay weynayn, ee waa shaydaan u yeedhid iyo dad iska dhaadhicis. Waxa uu yidhi waan u yeedhi jiray shayaadiinta anigoo magacyadooda hoos ugu yeedhaya. Waxayna ii iman jireen iyagoo u eg doofaar, kelab ama daayeer. Wuxuu yidhi waan u sujuudi jiray, dadkuna waxa ay moodi jireen inaan Ilaahay u sujuudayo. Waxaan ku wareegi jiray dadka bukaa ilaa 5 jeer. Waxaanan ku akhrin jiray duco. Iyagu duco ayay moodayaan, laakiin waxa weeye wax shaydaanka lagu labisayo. Waxa uu yidhi jirkoodana waxaan ku lamaanin jiray shaydaan. Dadku si ay ii aaminaana waxa aan soo qaadan jiray toori. Waxaanan bilaabi jiray inaan geliyo calooshayda, laakiin ima dusin jirin, waayo waxa ii xidhnaan jiray daac shaydaana. Wuxuu yidhi aniga oo dadku yidhaahdaan alla ninkan waa nin iimaan leh, malaa'ig baa ilaalisa. Baa maalin maalmaha ka mida waxa dhacday in aniga oo dadka u soo bandhigayo mindidii aan caloosha iska gelin jiray, laakiin aan gaadhi jirin, in uu soo galay nin qolka. Ninkan wuxuu u ogaa inaan ahay saaxir. Waxa uuna akhriyay aayatul kursi. Shayaadiintii qolka joogayna waxa ay bilaabeen inay cararaan. Tooridiina waxa ay gashay calooshaydii. Waxa uu yidhi dhakhtarka ayaa la geeyey, meel halis ayayna iga gashay, laakiin waan badbaaday. Waxaanan ogaaday markii dambe in nin soo galay oo aayatul kursi akhriyay. 15 sano ayaan waxaan ku noolaa buu yidhi mugdi, walwal, walbahaar iyo been. Lacag waan haystay, laakiin noloshu waxay ahayd mid aad u cidhiidha, deganaansho ma haysan. Wuxuu yidhi ma jirin wax iimaani. Marka uu qofku iimaanka leeyahay ayuu deganaanshahana helaya xasiloonida. Dadku lacag way siin jireen,
laakiin ma garanayo meelay mari jirtay. Waa isla sidii aabbahay uu ku noolaa. Ma dareemin buu yidhi raaxo. Dadka hortooda waxaan ahaa nin faraxsan, laakiin gudahayga waxa uu yidhi waxa ku noolaa xayawaano ama deganaansho la'aano. Waxaan dareemi jiray mar walba warwar iyo walbahaar. Wuxuuna yidhi Ilaahay baa mahad leh oo i tusay jidka toosan, laakiin sida uu ku gaadhay jidka toosan ama sida uu ku toobad keenay ma ahayn si fudud. Markii ugu horreysay sidee buu Daa'uud ku keenay bal hadda inuu sixirkan iyo waxyaalahan ku toobad keeno. Wuxuu yidhi habeen habeenada ka mid ah ayaan sidii caadadu u ahayd iska seexday, waxaanan ku riyooday riyo. Wuxuu yidhi waxaan ku riyooday anigoo caadi u dhintay, marayna dhammaan tallaabooyinkii dhimashada qofka markuu dhinto la marin jiray: maydhid, kafnid, ku tukasho iyo in qabrigii lay dhigay. Wuxuu yidhi waxaan isku dayay inaan kaco ama hadlo, laakiin cidina ima maqlayn. Dadku waxay igu lahaayeen Ilaahay baana dhaafiyey. Wuxuu yidhi waxa aan soo kacay anigoo ku jira qabriga, meel aad u madow, mugdi, xitaa ma lahayn meel yar oo iftiina. Wuxuu yidhi waxaa ka baxaya codad baqdin leh. Aad ayaan u gariiray, waanan baqay. Cabbaar ka bacdi waxa aan maqlay cod aad moodid onkod aad u weyn. Wuxuu yidhi waxaad moodaa wadnahayga inuu jidhkii ka soo baxay cabsi daraaddii. Kabacdi waxaa ii yimi malaa'igtii, waxayna i weydiiyeen rabbigaa waayo. Waxaan ku jawaabo waan garan waayey. Ma waxaan idhaahdaa rabbigay waa shaydaan oo shaydaan baan caabudi jiray? Waxa ay yidhaahdeen diintaadu waayo? Iyadana sidaasi leeg. Nebigaa waayo? Iyadana sidaasi leeg. Waan garan waayey. Waxaan kaloo yidhaahdeen ma soo tukatay? Waxaan ku idhi maya. Waxay dhaheen ord soo tuko. Waxaanan ku idhi daahir ma ihi, ee sidee baan halka iskugu daahirin karaa? Waxay yidhaahdeen sug. Waxa ayna ii keeneen biyahani buu yidhi shayga ay ku jiraan weynaantiisa iyo biyahan kulka ka soo baxaya hadday diyaaradi kor marto waa ku soo dhici lahayd. Wuxuu yidhi anigoo yaaban ayaa waxa ka soo baxday gacan dhulka hoostiisa, waxa ayna igu riday biyihii karkarayay. Waxa la maqlay cod aad u dheer oo ka soo baxaya gurigii Daa'uud. Daa'uud waxa uu ka soo kacay riyadii isagoo oo dhidid waaweyni ka soo baxay wejigiisa. Dadkii baa soo cararay, waxayna yidhaahdeen Sheekh Daa'uud maxaa ku helay? Aad ayuu u tacabsanaa. Wuxuuna yidhi waxba ima heline, orday iska taga. Waxa uu yidhi waxaan bilaabay inaan mar labaad hurdo dib u seexdo. Wuxuu yidhi riyo kale ayaan arkay. Riyadan waxaan saaranahay meel dheer. Waxa hoostayda jooga aabbahay. Aabbahay wuxuu yidhi wuxuu ku weesaysanayaa biyihii aadka u karkarayay. Waxa uuna igu leeyahay inankaygiyo u carar, fursad ayaad haysataa. Daa'uudow baxso. Daa'uudow halkaa qof Ilaahay caabudo mooye cid kale kuma guulaysanayso. Daa'uudow toobad keen, waad i aragtaa. Waxa uu yidhi riyadii ayaan ka kacay. Waxaanan bilaabay inaan isdaahiriyo oo tukado. Halkaana waxay kaga bilowday dagaal aad u weyn oo noo dhexeeya aniga iyo shayaadiinta. Waxa uu yidhi markii aan siri tuko waxaan ka kici kari waayey furaashkaygii. Waxa aanan idhi Ilaahayow haddii aad khayr ila doonayso i caawi si aan kuugu sujuudo. Waxa aanan u kacay oo bilaabay inaan isdaahiriyo, dhar nadiifa xidho, tukado, qibladana u jeesto. Ragcaddii koowaad wuxuu yidhi waxaad moodaysa in lay gowracay, layna bireeyey, qolkiina waxay iska buuxshay dhiiggaygii, laakiin waan sii watay salaadaydii. Ragcaddii labaad buu yidhi qolkii aan ku tukanayay waxa iska soo buuxiyey naaga jinni ah oo qaaqaawan oo doonaya in aan salaada ka baxo, laakiin waan sii watay. Wuxuu yidhi ragcaddii saddexaad waxa iyadana qolka iska soo buuxiyey niman iyo naago shayaadiina oo qaaqaawan oo hortayda isku fuulaya. Wuxuu yidhi salaadaydii waan dhammaystay kama bixine. Reerkaygiina aad ayay ugu farxeen toobadkeenka, laakiin saaxirku waa kii adduunka lagu sii ciqaabe intii aanu gaadhin aakhiro. Waxa geeriyooday Daa'uud 2 carruur iyo xaaskiisii. Waxa uu yidhi Daa'uud waxa dhacday
maalin aniga oo la fadhiya reerkayga oo aad u faraxsan ayaa wiilkayga weyn ee la odhan jiray Diyaadiin da'diisuna markaa ahayd 9 jir mar qura waxa uu bilaabay wiilkii yaraa inuu u neefsamo sida neefisooyinka indhihiina ay jidhkii ka soo baxaan una qarxo sida neefisada wuxuu yidhi waxa uu ku duulduulay gidaarada Daa'uud waa argagaxay laakiin ma isagaaba dhow waxa dhacday maalinkii labaad inankiisii yaraa ee Cumar oo isaguna markaa 6 jir ahaa in isla sidii si leeg lagu sameeyo oo u qarxo sida buufisooyinka waxa dhacday inay xaaskiisii ku xigtay xaaskiisiina waa dileen Daa'uud waxa uu galay in ka badan bil koomo isagoo mar walba soo xasuusanaya siday reerkiisa ku dhinteen laakiin marnaba kuma noqon dariiqii madooba ee sixirka wuxuu noqday nin toobad keena waxa uu aaday Indonesia bari dhaweyd waxa uuna ku sameeyay taxaddi koox sixirayaal ah oo Indonesian ah iyaga oo isku dayaya in uu mindi ku dhuftaan mid ka mid ah sixiroolayaasha isagoo ku akhriyaya Quraan kuna tufaya ducooyin hal mar haddii uu ku yiraahdo intuu duco ku akhriyo waxay ahaayeen kuwo duulaya awoodooda xitaa iskuma dayin in ay taabtaan sidaa ayuuna Daa'uud Maxamed Farxaan ku toobad keenay waan rajaynayaa in aad qisadan ka heshay fadlan channelka subscribe saar gambaleelka furo videogana like saar waad mahadsantihiin